Wacalaykum asxaabta waxaad ku soo dhawaataan wararkii u dambeeyay ciyaaraha. Halkan waa Saciid Madaali Sports. Maanta waxaynu fiiri doonaa Real Madrid oo garaacday kooxda kubadda cagta Man City, Arsenal oo si fudud u gudubtay, Chelsea oo burbur weyn lagu sameeyay, Fulham oo doonaysa lambar 9 cusub ayaad ku maqli doontaan, Pep Guardiola oo kooxdiisa eedeeyay sidoo kale waad ku maqli doontaan, Rashford oo heshiis cusub loo saxiixayo, Casemiro oo heshiis cusub loo saxiixayo waad ku maqli doontaan saaxiibayaal. Subscribe noo saaro nooca maamado maanta 10 subscribe na gaarsiiyay saaxiibayaal waa mahadsantihiin asaagiina naga reebina. Haddii aan ku bilaawno kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa xalay waxay burburisay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Man City iyadoo kaga adkaatay tiro gool la gaaraya 5 gool iyo gool labada kulan oo la isku daray. Tani waxay cadeynaysaa inay Real Madrid marka saddexaad oo xiriir ah ay reebayso kooxda kubadda cagta ee Man City, waana marka labaad oo xiriir ah oo Real Madrid ay reebayso kooxda Man City wareegga 16. Iminkan 2 jeer xiriir ayaa waxaa laga reebay 16, 3 jeer oo xiriir waxaa laga reebay koox UEFA Champions League guud ahaan. Mar ayaa play-off lagu reebay, sanadka la soo dhaafayna wareegga 16 ayaa lagu cunay, season-kan mar kale wareegga 16 ayaa lagu cunayaa. Waa markii saddexaad oo xiriir ah oo Real Madrid ay garaacayso kooxda kubadda cagta ee Man City, waana marka labaad oo xiriir ah oo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay ka reebayso wareegga 16 kooxda kubadda cagta Manchester City ay taasi ahayd. Real Madrid ayaa waxaa lagu tilmaamaa inay tahay boqorada Yurub, waana koox garanaysa sida loola ciyaaro kooxaha Champions League. Arsenal oo si fudud oo xoog leh u gudubtay kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen waxayna gaareen wareegga quarter-finaalaha. Kooxdu waxay muujisay qaab ciyaareed heer sare, Eze iyo Declan Rice ay kala heleen labada gool. Tani waxay cadeynaysaa in Arsenal aysan ku tiirsanayn kaliya hal player sida Haaland oo kale. Arsenal player walba gool ayuu dhalinayaa, balse kuma tiirsana hal player oo kale. Waxaa jira kooxooyin badan oo ku tiirsan hal player oo kale, lambarkooda 9aad sida Manchester City ayaa ka mid ah. Kaliya Haaland haddii laga qabto nin kale wax dhalin karo kuma jiro, balse Arsenal saas ma ahan. Player-kooda lambarka 9aad kuma tiirsana, daafac ayaa dhalinaya, khadka dhexe ayaa dhalinaya, Benzema ayaa la dhalinaya, garabka ayaa la dhalinaya, wax walba ayaa la dhalinaya. Taasina ayaa ugu fiican runtii inaad ku tiirsanaan hal ciyaaryahan, sababtoo ah taas dhibaato weyn ay leedahay hadduu ka dhaawacmo ama ciyaarta ciriiri la geliyo oo si fiican loo xirto. Taasina waa khatar aad u badan. Mar walba waxaa kuu fiican adiga 5 ciyaartooy ama 6 ciyaartooy oo wax dhali karto inay garoonka kugu jirto. Arsenal sanadkan runtii waxay intaana koob u ciyaaraysaa waa horyaalka iyadoo hogaaminaysa, Champions oo xalay gudubtay, sidoo kale Carabao Cup oo finalka joogta, FA Cup oo ku jirto. Arsenal season-kan inta koob ciyaaraysa way ku wada jirtaa, meel fiican way ka wada joogtaa. Runtii waxaa sababaya hal ciyaartooy kuma tiirsan. Arsenal sanadkan 6 ciyaartooy ama 5 ciyaartooy wax dhali kara ay haysataa. Keedkoodana aad buu u fiican yahay. Hadduu midkan gudaha ku jiro wax dhali waayo, keedka ayaa la fiirinayaa, wax bal uu soo tuuray oo dhalinaya. Waxaa la leeyahay Theo Henry season-kan isagoo wuxuu sheegay in Arsenal ay ka maqneen tactics-kan sanadihii hore, in ciyaartooyda badan aysan keedka u fadhin sanadihii hore, taasina ay caqabad ku ahayd in mar walba horyaalka iyo Champions League meel xun ay ka gaaraan. Balse sanadkan Arsenal aad buu u amaanay, keedkooda waa fiican yahay. Hadduu midka dhexe wax dhali waayo, aad hore waxaa la arki jiray in Martin Odegaard la bedeli jiray. Maalmaha waxaan arkaynaa Martin Odegaard isaga ayaa booska laga riixaya. Taasina waxay sababaysaa tartanka xifaaltanka ka dhexeeya ciyaartooyda dhexdooda. Taasina waa taa. Kooxda Chelsea ayaa burbur weyn lagu sameeyay. Chelsea ayaa waxaa laga reebay, waxaa laga cirib tiray Paris Saint-Germain ayaa waxay ka reebtay Champions League iyadoo tiradii 2020 may ahayd moogi oo Bayern Munich ay ku reebisay kooxda kubadda cagta ee Barcelona 8-2 ahayd. Taas ayaa lagu reebay. Chelsea runtii waxba isku mayso, garoonka iyadoo la joogay wax gool dhali waayeen. Taasina waa laga badiyay 3-2 iyo 5-2. marka tirada goolasha la isku darana waa 8-2. mar kale PSG waxay u caddahay sanadkan inay ka mid tahay kooxooyinka ugu cadcad ee qaadi kara Champions League. Tani waxay ka dhigan tahay awoodooda PSG inay ka mid tahay 3 koox ama 4 koox ee loo saadaalinayo inay ku guuleystaan haddayba ka soo galeen lambarka 1. Tababaraha PSG oo hadlay wuxuu yiri Chelsea si fiican ay nala ciyaareen, balse ugu dambeyntii wayna ku guuleysan ayuu yiri. Sidoo kale Ousmane Dembele ayuu yiri mar kale waynu qaadi doonaa
UEFA Champions League ayuu kusoo gabagabeeyey. Haddaan fiiriyo saaxiibayaal suuqa kala iibsiga, haddaan fiiriyo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa waxay dooneysaa inay heshiis cusub la saxiixato ciyaaryahanka reer Brazil ee Casemiro. Ciyaaryahankan ayaa sanadkan waa mid aad u wanaagsan marka loo fiiriyo sanadihii 3 sano ee lasoo dhaafay uu joogay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Manchester United, isagoo season-kan u saftay kooxda Manchester United 28 kulan oo Premier League ayuu dheelay, wuxuuna dhaliyay 7 gool ayuu dhaliyay, 2 goolna waa caawiyay. Runtii hal oo red cardna waa qaatay, wax yellow cardna ma qaadan. Haddaan fiirino EPL wuxuu ciyaaray 2 match ayuu ciyaaray, 2 gool ayuu dhaliyay, wax assist muusa sameyn. sidoo kale sanadkii 2024-2025 Premier League-na 24 kulan uu ciyaaray, 1 gool ayuu dhaliyay, wax caawin ah muusan sameyn. sidoo kale 2023-2024-na 25 kulan uu ciyaaray, 1 gool ayuu dhaliyay, 3 assist ayuu sameeyay. sanadkan ciyaaryahankana Casemiro ayaa sanad aad u wanaagsan. sanadihii labada sano ee 3 sano lasoo dhaafay marka laga bixiyo sanadkan 2 sano kasii horeysay, ninkan 1 gool ayuu dhalinayay, waxba ma caawinayn, ama 1 gool ayuu dhalinayay, 3 gool ayuu caawinayay. Tan waxay ku cadeynaysaa sanadkan inuu Casemiro aad u fiican yahay, uuna sabab u yahay bandhiga Manchester United sanadkan ay sameynayso oo Michael Carrick iyo tiimkiisa ay sameynayaan. Casemiro ayaa ka koobaya mar walba waa caawina ama waa dhalina. waa sanadkan waa mid aad u wanaagsan waay, khaasatan marka uu shaqada ka tagay Ruben Amorim. ninkan waxaa la leeyahay wuxuu u noqday Manchester United ciyaaryahan aad u muhiim ah ayaa la leeyahay. waxay rabaan inay heshiis dheer ka saxiixdaan, inkastoo toddobaadkii hore uu sheegay in Manchester ay tahay season-kiisa ugu dambeysay, balse wararka maanta waxay sheegayaan in Manchester ay dooneyso in heshiis kala haddii aan fiirino saaxiibayaal kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Barcelona, iyadana waxay dooneysaa inaysan xidiga lagu magacaabo Marcus Rashford aysan u celin Manchester United, iyadoo waxay dooneysaa inay kala saxiixato 3 sano heshiis ayaa la sheegayaa. isagoo season-kan wuxuu dheelay 23 kulan oo La Liga ayuu dheelay, 4 gool ayuu dhaliyay, 7 caawinna waa uu sameeyay. Champions League wuxuu dheelay 9 ciyaar ayuu dheelay, 5 gool ayuu dhaliyay. sidoo kale waxa uu caawiyay 5 gool ayuu dhaliyay, 3na waa caawiyay. season-kan waa mid aad u fiican, 23 kulan oo uu dheelay xitaa toos uma uusan dheelin, waxaa ku jirtay ciyaaro badan oo bedel uu ku soo galay. inta badan ninkan laguma soo bilaabo, inta badan bedel ayuu ku yimaadaa. taasna waxay sabab u tahay in kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Barcelona ay heshiis cusub ka dalbato ciyaaryahankan lagu magacaabo Marcus Rashford. saaxiibayaal haddaan fiirino xidiga lagu tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa waxa uu eedeeyay guud ahaan kooxda, kaliya muusan eedeyn Erling Haaland. waxaana sidoo kale tababaraha isagoo hadlaya wuxuu yiri Erling Haaland waxaa sababtay difaaca Real Madrid oo adkaa inay geli waayaan ayuu yiri. sidoo kale wuxuu sheegay in Rousseau uu sababay in Real Madrid ay kaga adkaato ayuu sidoo kale Pep wuxuu sheegay inay kooxda dhan ay wada liidatay, ay foomkan wax ka bedeli doonaan. wuxuuna yiri manana jibi doona, waxaana focus ka saari doonaa ayuu yiri horyaalka Premier League ayuu yiri, iyo sidoo kale koobabka kale ee noo dhiman. iyadoo waxaa xusid mudan in hadda Man City iyo Arsenal ay ciyaarayaan finalka Carabao Cup, taasina waa arrin cajiib ay noqonaysaa. saaxiibayaal mahadsantiin, subscribe noo saara, like noo saara. saaxiibayaal 10 subscribe ama 50 subscribe noo tuur ama 100 noo tuur saa awoodaan. saaxiibayaal waad mahadsantihiin. 3 subscribe macquul maan asaagina naga reebina.